guuyaalo is-cirbinaya ayuu geedi socodka nolosha in aadan uu hadba la qabsigeeda iyo horumarinteeda ku xoojiyey hal abuur iyo howl joogto ah. xirfaduhuna waxay ahaayeen kuwo door muuqda kaga jira qaabeynta nooliga iyo lama huraanka dhinac walba oo nolosha ka mid ah sees u ah. qarniyo hore inta aanay Soomaalidu la qabsan adeegsiga qalabyada casriga ah ee dunida kale looga soo waarido, xirfad yaqaanadooda ayaa ahaa kuwa ka kaafiya adeegsiga nooc walba oo qalab iyo agab ah. ha yeeshee waa dhexe ayay shaqadoodu noqotay mid aan kaliya la iska hilmaamin balse sidoo kale laga daldoorsaday. maanta waxaa jira kobac iyo sare u kac laga dareemayo barashada xirfadaha. xarunta Xayla Bariise oo ah dugsi ka mid ah kuwa lagu barto xirfadaha tumaalnimada ama farsamada gacanta waxaa sida caadiga ka dhex jira shaqo joogto ah. in yar kadib markii kuliyadda tumaalnimada ay kasoo qalin jibisay Leila Awees waa kolkii ay sidoo kale dareentay inaysan faray ka qodnayn cilmiga loo soo dhigay, waana markii ay iska soo xaadirisay halkan. waxaana ka baxay kuliyadda engineering qaybteeda civil engineering. electrical aniga waa ku soo qaatay jaamacad waa soo dhameeyay laakiin practical ahaan uma soo qaadan. hadda inta ku qaata practical gurna maxaa leeyahay korontan waa gali karaa waxa leeyahay waa ku sameyn karaa hadii dhigo. Naciimo waa mid ka mid ah tiro arday ah oo dugsiga farsamada gacanta ee Xayla Bariise u soo raadsaday barashada gacan ka qabashiga ah ee cilmiga tumaalnimada ama injineeriyada. tan iyo sanadkii 2015 waxaa aad u soo kordhay xiisaha loo qabo helidda xarumo sida Xayla Bariise gaar ku ah. ka Cabdiraxmaan Cali ahaan kaas oo weligiisba jeclaa xirfadaha gacanta wuxuu hadda ku dhici karaa in uriyadiisa ah noqoshada xirfadle uu dhab u rogo maadaama uu helay fursadii uu ku taami jiray. xirfadan ugu horeyn horta xirfadan waxay ahayd hubigeyga. waxaan jeclaa mar walba wax walba oo la sameynayo in aan sameysto oo qofna uga yeeran. hadda waxaa baranayo electricna muhiim oo ogtahay qof walba gurigiisa markii uu joogo waxyaalo oo waxaa jira markaa oo asiga daruuri u ah korontadana waa waxyaalaha daruuriga inaan qofna uga baahan inay ii sameyso oo aanay sameysto. hobbigiina way ahayd yaraanteedii la hadla. mudaba Cabdalla Axmed Maxamed oo ah macalin ka tirsan dugsiga Xayla Bariise wuxuu si dhow ula socday kacaanka xiisaha oo jiilka cusub u qabaan xirfadaha tumaalnimada, wuxuuna u arkaa ifafaalo muujin kara isbedel togan iyo baahi had iyo jeer loo baahnaa oo waqtigeeda ku soo aaday. kaalin aad weyn sababtoo wax waaye haddii oo fiirsho macnaa intaas oo technician oo wadamadaas dibadda laga keenayo oo haddana lacagtii waxooda ay hor qaadanayaan anaga dhaqaaleyna hoos u dhacay. mid labaad wax waa dhalinyaro badanaa jirto oo maanta oo xataa jaamacad ka wada soo baxeen laakiin aad ku arkaysid maxaa lahaa nasiib xumo eego bajaaj wadaan iyo eego shaqo la'aan ah iyo waxyaalaha oo shaqo raadinaya waa shaqadoodu waxay ku salantay xafiis iyo waxyaalahaas inay fariistaan. shaqadii kale oo dibadda oo banaanka laga qaban lahayn looma hayo maxaa lahaa shaqaalo ama technician. boqolkiiba 90 xarumaha waxbarashada dalka waxaa ka socda cilmi ku dhisan aragti oo aan dhaafsiisaneyn qoraalada buugaagta. ha yeeshee 30 sano kadib waxaa muuqanaysa rajo ah in dhaxalkii lumay ee tumaalnimada uu waji cusub oo casri ah iyo micno kale oo ka duwan kuwii ay ka qabeen Soomaalida uu uga dhigan yahay jiilka maanta hana qaadaya.